any problem kasta oo nolosha ka mida oo la xalinayo waa in loo fakaraa waa inaan problemka mushkiladii laga darin mushkilad kale mushkilad ka weyn hadaa keenta ka hor ilmo yaroo guriga jooga baa koob kaa jabiyey waad ka daba oradayoo tarmuusaa jabisay adna lugta ku qaaday maxaa xalisay xalinaysaa ayib amahan meel oo lagu tusaalooyinkan badinaya meel oo warshad ah baa waxaa mar kasta looga shaqeeyaa qasaacyo caanabooraha waxaa gudba kuwa maran qasaacyo maran baa gudba waa laga fakero see loo ilaalin karaa qasaacyada maran injineerada waa lasu yimid waxaa loo baahanya waxa la iskaan la marsiiyo sida ereborradoo kale in la marsiiyo gudaha wax ku jira la arko nin iska shaqaalaha yidhi anaa hawsaa xalinaya lacag yaraa la siiyey haye xalyaa la yidhi wuxuu yidhi meesha waxaa la dhigi doonaa marawaxad xoog u wareeganaysa midii maran markay soo marto marawaxaddaa tuuraysa sooma dhammaan xalkeedii markay soo marto marawaxaddaa tuuraysa waa la dhammaatay xaggee marka mushkilad wax weyn loo raadinayaa buuga oosina macalimiinta ka hadlaya ujeedooyinka waxbarashada baa wuxuu ka sheekeynayaa meel liftiga ku yaala hadda jaamacadda ama meel wiishka ama miscadka la koro ee kor loo raaco dadkii waa ku daay 70 dabaq waay dadkii waa dahsadeen waa la dahsaday injineeriya loo yeelo waxaa la yidhi haye yaa xalinaya qaar waxay yidhahdeen intaasoo 9 milyan baan ku xalinaya intaas $10,000 nin baa wuxuu yidhi wax yar lacag yar anaa ku xalinaya see u xalinaysaa anaa aqaan wax yaraan ku xalinaya wuu sheegay wuxuu yidhi mushkiladii jirta horta ogaad aan fahamno mushkiladdu maaha baalkaanu daahayo mushkiladdu waa dadku inay dhararsanayaan dadka u baahan degdegaya marka waxaan samaynayaa meeshaan barkad yaraan ku samaynayaa malaaye waxaasaan ku guraynaa kuraas fiican baan dhigaynaa TV fiican la fiirsado waxyaalaha ayaan dhigaynaa meel ilmaha yararkaa ay fadhiisan karaan dhigaynaa waa xalisan tahay waa la sameeyey wax daahaya ma leh hadda haddii jaranjaradan gabdhaha iyo wiilashiina ay isku qabsataan oo marka la deganayo xal ma u haysaan ya ma xalinaa ma xaliyaan ya ama idinku soo noqdaa xalku idinku jaranjarada waa ahaato jaranjarada la sugu yimid gabadhaana waxay soo jeedisay jaranjaradaas haba muraayad weyn lagu dhejinaa agteeda muraayaddaas ku dhejinaa kuwii gabdhaha aawe muraayadda ku leexdeene wiilasha waa gudbeen raalli haadaya waa tusaale uwaan iska tusaale laakiin waa inaad shayga xallin kartaa mushkiladda xallin kartaa markaan reebnayo xallinayo shayga imaginationka fiiri imagination khiyaal hadda idinkan fiiri knowledge-ga cilmiga iyo khiyaalka kee muhiimsan waana wax khiyaalaysaa waxyaalaha wax keenaya mararka qaarkood waa inay daruura markaa fiiriso waa inay geeda ka arki kartaa waa in dadka u muuqdaan qaar arka ma jiraan markaa meel ba sawir ka aragto waa inaad sawir samayn kartaa ka muuqanayo khiyaalka waxyaalaha qaarkood xalkooda waa keeni kartaan laakiin khiyaalku waa muhiim maxaa koorsiga u qaabanaynaa su-aal weeye koorsadaan maxayna taraysaa casharadan so inaan fekerna u baahnin xaggee laakiin uu applicationkeeda ku dabaqaya waxa ugu horeeya aqoonta waxbarashada aan baranaya ugu horeysa iyadoo inay dabaqantaa waa ina ayaga ansaxaa waxbarashadeeda haddaan iska laqo ya haddaan inaa qalinkeyga gacantaas qalin ku qoro ishaan gacantaan maxaa ku aragtaa qalinaad ku qoran maxaa aragtaa qalin adi maxaa aragtaa qalin waa la sheegay wax kale sheeg ya waa la sheegay wax kale ii sheeg yaa wax kale haya xariiqo hore ku yaalla wixii la sheegaa ku celin wax kale ii sheeg maxaa kaloo ku aragtaa gabadhaas waxay tidhi waxaan ku arkaa indhahayga sax maho wax kale keen waxaan gacanta waa soo dhammaatay wax kale keena midka qof kale wuxuu yidhi waxaan ku arkaa iftiinka soo sax maaha haddii shaygaani markii la yidhaahdo shaygan jawaabtiisa maxaa waay sidaan waay jawaabta kale mala miyaa ma yeelan karo ma yeelan karaan ama mid tii hore ka dhow laakiin markii la jawaabta ugu saxsan keen iyo jawaabta saxda ah keen soo ma kala duwana iyo midda ugu saxsan
iyo midda saxan way kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa kuwa saxan oo badan mida ugu saxsan hadda markaad rabto midaad noqoto ujeeddada iyo waxbarashada waxaa u baranayso waa ku cadyihiin meelay ku yaalaan waxa u fakarayso waxa qabanayso iyo kulliba casharadaada iyo dhammaan iyagaa meesha ku xiran yihiin arday waxa sida laga rabay hore u sheegnay arday haddaad tahay ama qof kasta ta ama nolosha ka mida 3 shay waa inaad ka dhisan tahay 3 shay 3 haddaadan aqoonin 3 ka mida kow waxaa u horeysa diintaada ma taqaan mise jaahila ka tahay bara diintaada haddaadan aqoon tiraado diintaada aqoon critical thinking inta cadaysa waxba haleynaysaa qolaa waxay leeyahay waxaan ka fakaraynaa waxba ka aqoon cadaana xajka iyo waxaa ka dhacda sanad walba intaasa ku dhiban jirtay see loo xalliyaa dadka isbuuranaya xalkeena fakara marka cabaar fakareen waxaa la yidhi waxaan ku xallinaynaa sanadkii 2 jeer ha laga dhiga xajka xaj 2 jeer ma laga dhigi karaa wax go-aan bil hebel u leeyahy ma laga dhigi karaa 2 jeer maya shayga aad ka fakaraysa horta ma taqaan shayga aad wax ka dhiibanaysa aad ma taqaan ninka dhakhtarka waa u takhasuskiisa waa u daysay soo ma kanna ma taqaanin bara horta kan diintaada ma taqaanaa 2 takhasuskiina aad u barta waxaa baranaysaan maadaada meel ku xun saddexaadna aqoonta guud waddankaaga ma taqaan dalkaaga ma taqaan wax ma akhrisaa adduunyada ma la socotaa soo ma dhahayno hadda caalamka waxa ka socda soo lama soconno soomaalida ku fiicanna weli waxaas saddexdaas triangle-kaas waxaa isku xira saddexagalkaas akhris inaad isku xirto akhris waxyaalaha aad ugu baahana oo inaan fakarno u baahana mararka qaarkood caqliga bini aadamku wuu qaldamaa araggu waa qaldamaa waxaas dhan waa qalda ra'yigaaga ra'yigooda caqligaaga waa la kala duwan yihin caqliyada shay sugan oo thaabit oo go-an ayaa jira oo loo noqonayo marka waxyaalaha qaarkood adoon u fiirsanin haddaad la dedigtanaado dubaha haddaa inta la dhacdo xoog ula dhacdo oo uu kaa dhilqado waa buriskaya oo il kaa jabiya maxay ku tartay saa ma xalinaysaa haa xallin critical thinking markaan ka hadlayno maxaan ka hadli doonaa waxaan ka hadlaynaa horta waa maxay feker waxaan ka hadli doonaa noocyada fekerka waxaan ka hadli doonaa critical thinking muxuu yahay asagu waxaan ka hadli doonaa maxaa standard oo ah lagu cabiraa halbeegiis maxaa waay waxaan ka hadli doonaa maxaa faa'iide ma leeyahay waxaan ka hadli doonaa maxaa caqabado oo hortaagan qofku inuu fekero maxaa u taagan caqabad waxaan ka hadli doonaa qofka fekeraa maxaa lagu yaqaanaa arrimahaasi marka waa inay ku dhisaan adiga waxna kaa bedelaan qof fekeraya mata ahaa maxaa lagu yaqaanaa fekerayso waxa ugu basiidsan ugu yar waxaa waay shayga aad baratay ee taqaano fahamsanow meesha uu application ku dabaqmaayana garab kadib waa ka fekeri kartaa haddii laakiin shaygiiba uu kaa qarsoon yahay ama uu maqan yahay ma ka fekeri kartid horta shayga baro una baro waxyaalaha aan u baahana casharkeena koobnaan doono thinking waa maxay thinking waa maxay fikir ardada markaa weydiiya fikir wuxuu ku leeyahay wallahi intaa la qabsadaa saasaa la dhahaa meelahaan mi ku jiraa ma ogi ama lugta la qabsadaa yaa dad lugta qabsanaa ma jiraan markaa fekeraysaan indhaha baa xoogaa saas dhahdaa maxaa fekeran waxyaalaha qaarkood ashale ka fekeri jirtay oo maanta nolosha ku caado noqonaya ma jiraa qofka hadda loo dhiibo darawalnimo oo la barayo lugtii iyo wixii dhan waa ku adag yihiin laajidkii iyo dadka ilaalintooda maalin dambe isagoo iska sheekaysanaya wadaa inuu lugtii wado iyo in kale iyo waxaas ma jira fekerka wuxuu noqonaa mid slow iyo mid fast ah wase buugta qaarkood dhigayaan maanaa haddaa wax cunaysa roogeyso bal mar qaarkood ma ogid waxaa roogeyso laakiin haddaad roog lagu dhaho shay dhagxaan ku jiraan aad roogeyso qac marka lagu yidhaha xoogaa ma fiirsanaysaa fiirinaya xanjada qaarkiin xanjada rooga inay xanjada roogayaan ma oga waa la iska wadaa ogoliyi waa mekanism bas dhacaya laakiin shay kaloo aad dhadhankiisa aad aqoon lagu dhiibay waa fiirinaysaa waxaa la yidhi cuntada caafimaad ahaan sidaa u roog ama shaygaa intaa waa u fiirsanaysaa laakiin markaa u fiirsan weyso marka qodobada ugu muhiimsan markaan ka hadlayno creative thinking hadda su-aalaan weydiinaya tusaalooyin maskaxdiina
marmaray beel kale ku mashquulaysaa hadda tusaale ma weydiiyaa waxyaalaha taqaanad weydiinaya laba saddex ku dhufo afar ku dhufo saddex lix ku dhufo laba sideed ku dhufo shan lix ku dhufo laba saddex ku dhufo midii afraad maxay ahayd aan sheeday markaan weydiinaya maskaxaad waxay ku mashquulsanayd isku dhufasho aqligeena waa kaas soo jeedaan maxaa ku mashquulsanadeen isku dhufasho laakiin ma ku mashquulsanay inaad ka hore tirisaan may aqli asaga maartay u baahan toosina u baahan yahay marka waxyaalaha aad ku mashquulayso waxay u baahan yihiin wax badan oo baahan yihiin oo aqliga ka qaldami kara arrimahaas oo dhan maadada fiican weyn laakiin shayga waa in loo isticmaalaa meeshiisa wanaagsan miyaan ahayn meesha wanaagsan hadda maadooyinka aad dhigataan ma jirtaa maadooyin aan u baahnayn fakar iyo faham yaa ii sheegaya yaa gacan taagaya maado aan u baahnayn in laga fakaro ama la fahmo ma jirtaa oo la iska xafidayo maado hebela iga dhageyso tee waay tarbiya carabi ma fahmay miya ما حافظه لكن معناه ما أباهن مياه تربية إسلام كي دينتي برشة هذا ما أباهن مياه بس كده عسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحيتنا ما غانا هوا إله يديله هيكل ريب المياه ما قام وماشي أباهن هذا فيري إذنكو هذا أنت جوجا فيري oo jaamacad dhigto oo intaas da'diina tahay hadaa kitaab quraan soo qaado ad kala furto oo aad aqoon ka warramo sharaf miya warqad haduu qof ku soo diro warqad message ku soo dhacay waxa ku dhex jirta af Jarmal $3,000 oo ku qoran tahay af Jarmal ku qoran meel ma iska joogay baraadina sidoo war ii fiiri markii lagu aqriyaa waxa lagu yiri $3,000 oo deel lagu leeyahay waa risaala ilaahay soo diray lambaala ilaahay soo diray ma fahamsanin biya waxay tahay waan iska soconaya waan iska qaadanaya salaada iska tukanaya waxaan sheegayaan ma garanayo oo kala soo maaha maada aan u baahnayn ii sheego Soomaali hada waxa ay sheegaysa aad garanayn maxaa sheegtay waxa ay sheegaysa ma garanaysid maada aan u baahan ma jirto maadadan fakarka lafteeda u baahan ka fakrid fakarku u baahan in laga fakaro maxaa ka qaldanaan kara dhinaca sax ma loo wadi kara ilaa shay kasta xarig hadii la soo qaato waxna waa ku xiran kartaa qofna waa isku dili karaa mindi hadii la soo qaato hilib waa ku jaran kartaa dibna waa la geysan karaa Soomaha baabuurta iyo biraha fihi ba'sun shadiidun wa manaafi'u linnaas marka shay kasta waa in laga fiiriyo war muxuu ku fiican yahay muxuu ku xun yahay ya oo awsan shaygu wax ku dhibin intaas waxa ku xigi doona fakarki waa kana qof aa ku yiri hadaba horeysa why he like me muxuu asagu ii jecel yahay asaga waa kee waa aabaha asaga kugu soo dhacay adi muxuu asagu ku jecel yahay yiri asaga ma dhahdaba ya haye tusaana iri gabadha la sheegay ma adiga gabadha la sheegay maada maahi gabadha fiican oo akhyaarta ah oo wanaagsan oo la sheegay ma qaarin weey ma ka horeeyo tare gabadha ka horeeyay masamaha shay kasta gabadha marka waxa u meenaa hadii dad waalan la yiraahdo buuxiya koosta maran si uu guraya mid uu yiraahdo war meeshaas waa maran tahay waxa leeyahay asaa waalan bas marka meel laga waalan yahay aqal u yeelo waalida miyay kamid tahay hada waxa u baahan marka in aad u fakarno